weli waxaad daawanaysaan war wixii gudaha iyo daafaca caalamka inaga soo gaaray anigoo durdur ah ayaa idin waramaya ee markan akhbaaraadka dibadda. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa laga laabtay baasaboorka dalkaasi. FBI-da Mareykanka ayaa toddobaadkii hore baaritaan ku sameysay guri uu leeyahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald J. Trump kaas oo ku yaala gobolka Florida. baaritaankaas waxa ay hay'adda ku sheegtay dukumiintiyo sir ah oo lala xiriirinayay inuu si qaldan u maamulay madaxweynaha xilliga uu xilka hayay. dukumiintiyada guriga laga soo saaray oo gaaraya 11 warqad ayaa lagu tilmaamay kuwa wax u dhimi kara amniga qaranka dalkaasi Mareykanka. Trump wuxuu beeniyay inay jiraan waxyaabo qaldan oo uu sameeyay, wuxuuna sheegay in dhammaan dukumiintiyada la xafiday oo aan wax dhibaato aysan jirin. dhacdadaasi ayaa diiwaanka ku gashay inay tahay markii ugu horeysay ee baaritaan dambi ah la xiriira lagu sameeyo madaxweyne hore oo Mareykaan ah, sidoo kalena la baaro gurigiisa. FBI-da oo adeegsanaysa warqad sharci ah oo u ogolaanaysa in baaritaan ay ku sameyso guriga madaxweynaha ayaa sheegtay in guriga laga soo saaray in ka badan 20 sanduuq oo ay ku jiraan sawiro, dukumiintiyo gacan lagu qoray iyo macluumaad aan la cayimin oo ku saabsan madaxweynaha Faransiiska. waxaa la shaaciyay liiska waxyaabaha laga soo saaray guriga Trump. dhinacyo kala duwan ayaa horay looga eegay arinta sida ee saameynta ay ku yeelatay iyo waliba ee sharci darrada Trump uu ku dhaqmi jiray. hayeeshee isniintii la soo dhaafay ayuu madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Trump sheegay in FBI-du ay ka qaadatay 3 baasaboor oo uu lahaa inta lagu guda jiray weerarka gurigiisa lagu bartilmaameedsaday. Trump ayaa waxaa laga yaabaa in maxkamad lala tiigsado.